أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دو موقال كان كوكو عصبي سبسكرايب تلاك تشارت كومنتيغا هنغا بقيلين ولا الكيغا أما ولا شيء قاليغا كليا أنا وحنوتاي يرجلين انتاسير وحيرا ينو دمان خيب قادو dad badan ayaa waxay dhaheen ma naga bedeshid background-kan ama background-kan xugeela waa qaybira igoon oo beerteeda guriga beertiisa banaanka ah waan dhisay laakiin waxaan ballan qaaday waa maantan YouTube ka sameynay ayaan halkan ka sameeyay YouTube video u raan dhigan bartaan aad marka sameynay YouTube ka anoo guriga joogo YouTube ka sameeyay aniga sameeyay aniga video uran ku duubay daan iyo kursigan xusuusi u leeyahay laakiin studio ya maanta boqol subscribe ay dhiman 2000 kun subscribe boqol ay dhiman bis boqolkaas maantaan xiro waan bedelaa ka xusuusi u leeyahay marmar waa soo fariisanaa laakiin studio kala waan guuraa insha Allah ya wax walbana waan qurxin doonaa waana qurux badnaan doona haddana qurux badan waana si qurux badnaan doona insha Allah haduu ilaahay yiraahdo kaliya boqolkaas insha Allah mar dhow wili 190 waxaa naga dhiman waa 80 subscribe ayaga dhiman bis 2000 ya معقول مقولتي أنا هو مقالي رسالة صديقة أنت أسجارني دان ولي كاميرا ده إيش صوتي كاميرا وين إيو رفياشي وين لو سمينا أي وحكي كلا قلب كيد كلا ولي سودا لكن وإيا وان لي كاني قارن ولي سودا محرن ما أنت طبعا كاني نيكي ستوديو ديساين قاب كلو سمين لها مش لا سمين لها qaabki decoration-ka la qurxin badan lahaa ama design-ki maanta tawaankan waa cabirna marka mardhow waxa arkaysiin isbedel insha Allah isbedelkaas oo qurux badan arkaysiin marka hadda waxaan soo galay intaas ayaan waxaan ka dhahay asxaabteeda qaaliga oo ogsoonahay waa isoo dhidana waxa kamid asxaabtaas Liibaan dheere Xaawo iyo Salman waa faanteen amlana intaas daan uga baxo barnaamijkan uu soo galay maxay tahay barnaamijkan uu imaaday waxa waaye maanta inaan ka hadlo mawduuca uu soo fariistay ma rabo inaan video aan soo fariisto mawduuca aan soo fariisto laakiin danta oo qasabtay waaye waxaan arkay warbaraha bulshada saas dhaxmaray saas marka waxaan dhahay bal wax riko yar ma ka faaloota ama faalir ka bixib gabar la wareysanay ma aqaanana magaceeda kulay gabar Soomaaliyeed ama maamo Soomaaliyeed la wareysanay oo ay ku saabsanay mawduucan oo dhahaysay waxaa jiro raalaha guraan joogna waxaa jiro kaalesay oo dhanka sariirta ka sheekeynayso arrimaha sariirta ama arrimaha jiifka ka sheekeynayso waan la yaabay ana waxaan sidoo maxay tahay waxaas arrimaha jiifka iyo maxaa waay inta maxaa keenay markaan sii fiiri sii dhageysto maamada fiidiyaasha aan sii dhageysto wariye wareysana aan sii dhageysto صعب ما أقرأ وحبنا قلدن أنا أمد صوماليا ناي أمد مسلمنا ناي كاران أمد صوماليا ناي دقن لناي دقن كاس أو حلبة حلو دقن كا وناكسن وشرفت قفك أو وناكسن iyo qiimaha qofka oo wanaagsan
iyo qayimka qofka oo wanaagsan dhaqanka lagu sheegaa waa kaas dhaqan tusaale marka gabadhan la guursado mase family laga soo guursado ama family kale u galayso la guursado maxaa waaye waa safiirka maanta markay dowladda magacaabo waddan kale u magacaabo safiirka waddan kale loo magacaabo waddan kale wuxuu yahay waddan kale loo diray safiir waaye meesha noo fadhiyo waaye ma Soomaali u fadhiyo bulshada Soomaaliyeed dhan u fadhiya meesha u fadhiyo safiirkaas maxaa waaye xaaf madaxweyne camal waaye waxaa wixii inuu qabanayaa dhaqanka wuxuu ilaalinayaa nidaamkii dad kasta oo meesha adeegu meesha kasii wadayaa tusaale gabadha markay family ka soo baxdo family kale ay galayso ama la guursanayo ama loo soo god fariisanayo ama guurta u soo fariisanayo ama odayaal u soo fariisanayo ama dhaqan u soo taqaaniso gabadha miday ku cudur daaran kartaa ama caada xaal ay ku jirtaa xilliga caadada ama jiranta jira kale iska haysataayo ayadii qof xanuunsan ay tahay oo u garaabi kartaa laakiin gabar fiyow oo jaw oo qabto kibir iyo isla weyn ku jiro ama shaydaanka wax kale u sheegay intuu ninkeeda damco ama shaafto u kacawo waxa uu fasiraysta hooshii soo cabay hadhow dacwad ninka ay kufsaday taameel soo furtay ninka uu kufsaday bismillahir rahmanir rahim waxaas ceeb waaye dhaqanka ma ku jiro qof muslimna tahay islaamnimada qiimee isqadir adiga hooya ku dhashay aabba ku dhalay isqiimee waxaas ma fiicno ina dhahdid ninkiga i kufsada waan aragnaa anaga meel badan oo ku aragnay oo dad dhahayaan hataa intii loo furtay qof kale soo kufsada meel ha imaadin joo ee la furay wallahi gabdhaha la kufsada oo dadka hunguriya dilay Soomaali hunguri aad dilay inta oo dhahay iyadoo ninkeeda qabo xal ka soo tagtay ee dhahayso istimaac la soo sameysay ilaas wax wali kufsada amashtigiisa waxaas ka war dhaqanka ka war wax dhaqan xumadaas ka waran war islaamana anaga muslimana Soomaaliyana hadana dhaqankeena waa sharafta waa qiimaha iyo qiimka hay awad dumarkii wanaagsanaa dumarkii xishoon jira way joogan hadaba gabdha maasha Allah joogan gabadha wax aqoonta diinta wax ka fahansan maba dhahayso waxaas fiiri cawada ninkaaga hadda u diido waxa intaasoo nacalada kugu dhacaysa tan nacalada kugu soconay ilaa maanta dhan nacalada kugu soconaysaa nacaladaas maanta inay korkaa ku dhaxaysaa adoo fiyo cudurdaar leh hadda ninkaaga wax u diidid nacalada intaasoo nacalada kugu dhacayso markii lagu soo meerinay iskuul ma soo adeysay ma soo kiyaso waxa soo adeysay maxal dhahay dalxiis vacation soo adeysay guriga ninkan xaaskiisa tahay waxariga ilaa ku baneey waa lagu meeriyay guurtana ku soo fariisatay gabaati laga dhiibay Sooria laga dhiibay yarada laga dhiibay roosa lagu tuma mas'uuliyad laga hebel qoys marka intaas dhan la sameynay waxa u diidays horta ay soo damir ku sii war ninkan shahwada guway xalaashi saata woon ku agjifa marka doo anti aan sheegay waay shakada gabaadiyaha baashal iyo inta ka soo maray inta ka soo wareegay ma ka seen shaafta al soo kacay bas shaaftada la soo kacay mas ninka shaafta ku kaco ama oo waxay xeeladeysto bari maxalada baraha bulshada la soo imaad ma dhahay ninkii ay xoogay ninkii ay kufsado ceeb waxaas ma ceeb waay walaasheeda qaaliga waxaas ceeb ku tahay iska daa naagta waa soodkeeda inay ka dambeysaa waay waxaan ma aqaan dhankan qurbaha nooga imaadan waxaan
qurbaha taa dumar fiican oo wanaagsan oo ku jiraan way joogaan maasha allah dad fiican oo wanaagsan way joogaan qurbaha ayaa wax laga sheegin qurbaha dad wanaagsan oo joogaan si dalkiisa qaar xun u joogaan qaar fiican u joogaan xagna sidoo kale waay ilaaha wanaajiyo kuwa wanaagsan ilaaha soo hanuuniyo marka isku daya waa lagu weydiinaa ninkaaga ka dambe gabarey ninkaaga ka dambe asaga qiimo ku leedahay inuu gabadhaada adina qadari oo xushmee qadari ayadaa wax ku tahay labadiina waxaa isku tihiin awlaadiina way fiicnaanaysaa labadiina markaa isqadarisiin iswanaajisiin isxurmaysiin iskaraamaysiin isharaftiin awlaadiinana waa isharafayaan ya war ninka guriga kula joogo haddaa xanuunsanta waa kuu joodaawo haddaad xeel ku hayso maanta caadada ku joogto kuu jooda haddaa xun asaaba naxariis kuu samaynayo haddaad umur tahay hataa waa kuu jooda laakiin adoo fiyow gabadheeda nacalta isku ridan nacaladii kugu dhicin nacalada waxun waaye ka fogaaw ya nacalada waxun waaye ka fogaaw intaasaan ku dhihi lahaa marka walaasheeda qaaliga ah hadalkaas amaanta baraha bulshada ka wadayna ma aqaan aniga waxaa ka waday ummadaas ya dadku qaar iska maangaaba hadalkaaga raacayo haye ma fiicna marka waxyaabaha qaar ana ma aqaan waxaa ka wadid ilaa hadda waan fahmi waayo waxaa ka wadid culummada dhegeyso culummaan leenahay culummadeena dhegeyso waxay sheegayaan haye in nacad kugu dhacdo mataqaanaa adiga hooyaa ku dhasho hooyadaada ku laabo hataa gurigaada hooyadaa ku laabo marka ma haboono gabadha muslimadda ah oo ninkeeda intuu istimaac la sameeyey ama dhehayso wuu i kufsaday waxaas dhaqan maahan gabadha waa inay soodkeeda ka dambeysaa ma aqaan laakiin waxa ay banaanka la keenayo oo la dhahayo ninkii i kufsaday gabadha ay dhehayso gabadha dumar ay leedahay gabadha ay leedahay ninkayga i kufsaday waxaas ma fiicno diin ahaan ma u fiicno qof muslim inuu afkiisa waxa soo maraan waa ceeb waaye ilaahay ka cabso gabarey ilaahay ka cabso gabarey ilaahay ka cabso ninkaaga raalli u noqo ka dambe haddaan raalli noqonin ka dambe gabdhaha diinta yaqaana waxaas maba ku hadlayaanba bismillaah ma naqaano waxaas gabdhaha laha naga maqshiinin dumarka soomaaliyeed qaar wanaagsan oo qiimo badan ayaa ku jiro aniga waxaan dhihi lahaa ninka hadda maanta la soo fadhiya social media waraasika gabadhaas wareysanaya asaa qaldanbo waxyaabaha qaar aa wareysanaysid iska fiiriya idinka waxyaabaha qaar iska fiiriya ya qofkan ma aqaan dumarka dumar wanaagsana ku jiro waa tan soo sheegay dhaqanka iyo qayimka wuxuu keenaa ixtiraam diinta waxay ku baraysaa diinta daa taqaanid waxyaabaha xun waa ka xishoone in afkaaga soo maraan waxyaabaha xunxuna inay kaa lexisaa qof diin haysto ama diin ku dhashay waalid fiican soo barbaariyey waalid fiican soo garab istaagay waxay gabadhaas ku hadashay maanta ma ku hadlay maba qof waxay ku hadashay gabadhaas ma ku hadlay ninkeyga hadduu uu xoog wax iga qaato way i kufsada ee meel soo firiisanaysaa waxaas maxaa waay ninkaaga horta inuu ku xoogo maxaa keenay horta ninkaaga inuu ku xoogo walaasheeda qaaligeeda ilaana ku xushmeynan ku qiimeynan walaasheeda qaaligeeda ninkaaga inuu ku xoogo horta maxaa keenay haddaad jiran tahay waa kuu sheegay jirro hadday jirto cudurdaara leedahay haddaad caado kugu dhacdo cudurdaara leedahay
haddaad umul tahay cudurdaara leedahay, oo umusha aad umul tahay cudurdaara leedahay. haddaad qaliin ku dhashay ama cunug naaska siinaysid, cunugaaga naaska aad siinaysid yaa cudurdaara leedahay. intaba ma sameyn, adi ma ihid, qaliin ma gelin, caado kuguma dhicin, caado kuma joogto, umul kuma jirto taan kuusha hadda qaliina kaa soo martid, jiro kale kumeyso oo ma aqaan jiro kale kumeyso yaa maxaa dhaca marka? maxaa cudurdaarka aad keensanaysa? maxaa waaye xoogitaana sheegaysaay, waa lagu shaafteena, wili waa lagu shaafteena, ninkaaga ku shaafteena yaa ninkaaga uu ku shaafteysana, shaaftada u dulqaado. marka walaashayda qaaliga, marka gabdhaha quman, gabdhahina wanaagsan, waxaas naga maqshin, ilaahay ka cabso. intaasaan ku dhihi karaa, aan ku leeyahay ilaahay ka cabso, ha dambaabin, ilaahay ka cabso, ilaahay ka cabso. ummad muslimaan nahay, ummad wanaagsanaa nahay, gabdhaha noo soo koraaya, gabdhaha noo joogo, waan dhalne, wayna lalate, wayna dhashay, qiimo iyo qadarina agteena ka mid yihiin mar walba. dumarka Soomaaliyeed halkaasay noo saaran yihiin, dumarka madax halkaasay noo saaran yihiin. please waxyaabaha aad dhehaysid ha naga maqashiinin bes yaa, ha naga maqashiinin, intaas ha noogu samee yaa, ha naga maqashiinin walaasheedi, intaas ha noogu samee. waayo hadday ku maqlaan waxay dhahayn, war dadka waxay ku hayan qurba joog, qurbaha dad wanaagsana joogo, qurbaha gabdho wanaagsanoo sharaf badan, qiimo badan, xushmad badan aa joogo. gabdhaha qurbaha la eedan, qofka waa iimaanka, waa qof iimaanka waxyaaba qaar ma ku hadlayo, iimaanka qofka qaba waxyaaba qaar kuma hadlayan, mase qofka diinta fahansan walaa waxyaaba qaar kuma hadlayo. marka dadka kuwa qurbaha jooga, kuwa in joogaba dad xun way ku jiraan, dumarka isku mid maahan, waa wanaagsan yihiin. inta xunna ilaahay soo hanuuniyo, soo wanaajiyo aan leenahay. marka muuqaalkeena intaasaan uga baxayaa. waxaan ka codsan hadduu muuqaalkeena kugu cusubay subscribe, like, share, comment. walaashayda qiimaha badan hadduu video kusoo gaaro